laba fanaan oo hore Maxamed Saciid BK iyo Axmed Cabdikariim Biif ayaa shalay kilinkii dambe maxaadiro diini ku qabtay hotelka Sow ee magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal. Dr. Axmed Aadan Buuxane, Sheekh Xasan Khayre Dirir iyo culimo kale ayaa ku helinayay maxaadiradani iyo dadweyne tiro badan oo goobta soo buux dhaafiyay. Ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay Dr. Axmed Aadan Buuxane, Sheekh Xasan Khayre Dirir iyo Sheekh Yaasiin Ibraahim Cabdi waxayna ay tilmaameen waxaan ku dhiibin Allah waa ayda ilaahay ma keenay in way taamaanta ku jirno ilaahay ma keenay in way tagal sida loo wada inay ka faa'iideysan fursado rahmadda iyo nimcada iyo khayrka ilaahay maalintaasi inay dib u faa'iideystaan oo wax barashada iyo duruusta iyo culumta iyo cilmiga marka waxaan leeyahay culimada dhalinyarta oo wax badan ku soo jiray fanka ku soo jiray haddana ilaahay subxaanahu wa tacaala uga soo noqday wixii hore ay tiriyeen ama ay ummad soo jiiteen oo laga yaabo in badan inay dhinac qaldan ay u qaateen ama ay ku fasaadeen inay islaaxiyaan ay toosiyaan doonayaan aad iyo aad baan u ducaynay waana calaamaadka wanaagsan ee ka muuqda qofka camalkiisa iyo toobadiisa iyo wanaaggiisa inuu hagaajiyo qofka marka hadduu qofku isaafanka isaga sii jir kal dambaad islaamiye geerida ilaahay bay waqtiga iman doonto waxay leenahay xayaatada iyo nolosha markaan ka faa'iideysano ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ka baryaynaa walaalaha marka waxay dhammaanta markaynu hor jooga meel ka soo baxay u soo baxay markaa caalamkii waxa weeyaan wanaaga iyo khayrka u soo baxay in ilaahay tabaar iyo markaa sugnaasho ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala tawfiiqda uu markaa waafajiyo wasala allahu calaa rasuulillahi wacala aalihi wasaxbihi wasalam waxaana dhinacooda goobta ka hadlay laba fanaan oo hore Maxamed Mubaarak iyo Axmed Khayr aniga iyo saaxiibkay Maxamedba runtii waxaa naga go'an inaan dhalinyarada wax badan baan ku shugnay markii hore oo qaldan laakiin hadda inaan runtii isu sheegno runtiina إنه الله سبحانه وتعالى قرب صنوك بجنبه وايو الضومين هاي الدنيا ده إنه واحد أكتين وكتير دونا مركا قرطة نسوا دعية وواحد نقصوا دعيسان إن الله سبحانه وتعالى أنك مارت النصبه وخير كان نقصه ولا الله يجيب كله رنتي قلبي في عم وأنا أقول هاي أنت وضع بدني أيديكوا هايسو arrintaani oo qalbiga ka gubanaya oo qof kasta ama markuu xanuunsado ama ay markii dhibaato marka halka waxa ka qaadanaysan qofka muslimka ah oo mu'minka ah inuu rabbi subhanahu wa ta'ala uu doonayo wax badanna uu ka doonayo rajo badan ka qabo inuu aakhirka uu jannada galo adduunyada intuu joogana uu badbaado aakhirana uu ku badbaado oo jannooyin ilaahay siiyo qof kasta waa jecel yahay laakiin waxa leena ka rabaa inaynu jannada u shaqeysano jannadu iska baxay sheekh mayaanu waan baranaya markaan barto kabacdi markaas sida Axmed Khayr aan marba ayad sameeyay marka inta way sameeyay ayna macluumo meesha aanu ka nidhi way ka wacyi gelinaya meel badan biyay oo wada qura leh laakiin midna waxaa leeyahay laakiin biyana deegaanka ma fiicna musiibo istasaaran inta la qoraya marka hore aan qornay idinka wada gelina intiyaada ku sameeyay waayo wax khaldan baan idin soo gudbinay naga kale hada waa muusigiiba sheegay markii hore waxaan idin ku sheegi jiray sidii kale laakiin hadal qayxan banis walbikoorna inay iga raale hada qodobka kale ka hadlaya waa qabyaalada iyo takoorka qabyaaladu wax fiican ma niyadiina in la isku garto reer hebel buuha oo dee intii la sheegay mooyee ma fiicna baasha in lagu dhaqmo qofka dadku xiga ee neeftii heshiisaan ayuunba cid wadaagtaa